madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ka hadlay xafladaasi ballaaran ee lagu xusayo sanad guurihii 40aad ee ka soo wareegay xilligii la qoray afka Soomaaliga ayaa sheegay inuu ka mid ahaa dawladdii ku dhawaaqday xilligaasi qoridda Soomaalida waxa aan ka mid ahaa maalintii af Soomaaliga qoristiisa lagu dhawaaqay 1972 dawladdii waqtigaa joogtay ee ku dhawaaqday af Soomaaliga qoristiisa ayaa ka mid ahaa waxaan ahaa wasiirka qorsheynta qaranka ayaan ahaa waxaan aad xusuustaa guddigii af Soomaaliga qoristiisa wasaaraddeeda markii hore waxay u soo jeediyeen wasaaradda jaangooyada waan ka hor imid waxay caawisay dhaqankaygii aan ka soo jeeday ee reer baadiye ahaa anigoo dib ugu noqday caruurnimadaydii ayaa waxaan xusuustay marka reer miyigu degayo ee uu meel bannaan degayo haddaanu meeshu degana aanu ahayn oo uu yagleel yahay waxaa la sameeyey waxa la jiray qorshe la samayn jiray oo geela halka uu ka soo jeesanayo badaba la dugsado oo laga yara fogeeyo guriga aqalada aroosyada iyo meel gooniya la dhigo halka islaanta reerka ugu weyn meesha ay degayso waa la qorsheey jiray si buturuq la isaga bedeli jiray marka hal qorsheeyaa la oran jiray marka sidaa daraadeed waxaan anigu wasaaradda jaangooyada inaan saaxiib ahaan Allah u naxariisto markaan nooleen Ibrahim Meegaag la oran jiray ayaa maaliyadda hayay marka waxaan jaangooyadu waa guddidii af Soomaaliga loo saaray jaangooyadu waxa lagu sargooyaa cagta la saari jiray saanta la gooynayo kabta laga samaynayo marka waxay taasi wasiirka maaliyadda ku wanaagsan tahay dakhliga kharashka la isla kasiiraya Ibrahim Meegaag baa ku riixay Allah u naxariistay marka qorsheynta horta sida ku baxday ahayd oo qorsheyntii sidaas laga aqbalo wasiirkii qorsheynta la baxday aad baan ugu faraxsan inuu magaciisa buuxa u hirgalay oo aynu maanta waxaanu ka hadlaynaa qorsheyn tahay marka af Soomaaligu waa waxa koraya waa hadda dhalinyarada iyo mutacalimiinta iyo khubaradii ka hadlaya hal-abuurka iyo dhalinyarada sameynaysa akadeemiyaasha iyo dunida caalamka soo shaqeeyay ee hawsha tan wada ee gacanta ku hayay hadda inoo sharxayeen waa waxa maalin walba koraya maalin walba wax lagu beerinayo maalin walba wax ku soo kordhayaan insha Allah taala waxa noqon doontaa luqadaha ugu rijsan ama ugu waaweyn ayay noqon doontaa dadka Soomaaliyeedna waxa isku xidhaya dhaqankiisa noloshiisa iyo mustaqbalkiisa iyo amaankiisa inay noqoto insha Allah taala marka waxaan rajaynayaa in Ilaahay inagu guuleeyo meel joognaba oo noqoto luqad ummadeen iyo dalkeen iyo diinteennaba anfacda inay noqoto waxaan markale ku celinayaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jabuuti iyo shacbigeeda iyo dadkeeda doorka hormuudnimada ay ka qaataan iyo dhiirigelinta ay hawsha ka qaataan annaguna waxaan ballan qaadaynaa wixii hawsha naga soo hagaaga inaanu dhinacaya ka qaban insha Allah taala wassalaamu calaykum wa rahmatullahi